ma ku dhibanaad xantada ilmaha la siiyo oo cuntada kadib la siiyo si maaragtay wixii aalihii macmacaankii iyo bakteeriyada iyo waxaasoo dhan ka nadiifiso ayadoo family loogu talagalay oo maaragtay xoogaa ku heenayso haddaad ku dhibaneed hadda waa laga maarmay webseedaan helay iyadoo maaragtay khudaar laga sameeyey aa ka dalbanee hadda waa kanaa wuu ii imaaday waqti wuxuu kuugu imaanaa aad iyo aad u fududna jimcihii aan dalbaday isniinta maanta waa ii imaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamay family and friends tiimuna macaani meel dunida daafaheeda aad kaga sugan tihiin. maanta halkan waxaan idinkugu hayaa ilmahayga u dalbay waxaa layidhi naftaada waxaa la jeceshahay walaalkaana la jeclo. sida aan YouTube channelkan aniga aan u furtayba yacni waxa aan jecelahay ama wixii aniga faa'iido aan u arkay in aan gabar walba oo walaasheeya meel walba dunida daafaheeda ee kaga sugan tahay inay iyadana ka faa'iido ama wax walba saa u nadaamsaday inay ayadana u nadaamsan lahayd maadaama hooyooyin aan nahay. hooyo walba waxaa fiican iyo gabar walba gabadha kale walaasheed waxa ay ku dhaanto in ay uga faa'iideyso. idinkana waxaa idinka codsanayaan dhiirigelina ii tahay in aad YouTube-ka kor iigu qaadiin subscribe ii saartiin share-kida iigu qabatiin comment qurux badanna aad ii soo qortiin sababtoo ah intaas anigana dhiirigelin maniga caajisayay. waxaan dareemayaa in walaalahay ay maaragtay ayagana i caawinayaan intaas ana caawinaad ii ah. halkan maanta waxaan ku hayaa marka bastiili waxa ay finishka dhahaan ama finlandeeska aan la deganahay. bastiili Soomaali fiicanna kuma aqaano, qofkii yaqaano hoos ha iigu reebo. nacnac iyo xanjo labadaba waa la dhihi karaa. marka sidaani ayuu u eegyahay. marka waxaan rabaa sharaxaad guud in aan idinsiiyo. marka bastiiligani muxuu ilkaha ugu fiican yahay, goormeesa la isticmaalaa? waxaa la isticmaalaa cuntada markaad ilmaha siisid kadib sababtoo ah waxyaalihii macmacaanaa ee cuneen oo kale ama waxyaalihii aashitadoo kale maado waxaa ku jirto loogu soo talagalay oo burburinayso ama ilkihii aan u gudbinaynin. waxay kaleetay ilkaha siinaysaa fresh oo kale, caraf yaroo degan oo kale. waagii hore waxaa ku dhibaneen badankooda waxaa ku wadi jiray doofaarka saliidiisa. marka hadda shirkad finlandeesa waxay keeneen iyadoo sida halkan ka muuqataba iyadoo maaragta khudaara. marka badanaa ani waxaa googlaha isticmaalaa. googlaan baara waxa u baahasa u baaray al ultimo shirkadan ayaan soo helay, magaceeda waa kaas. marka waxyaalo badan dhadhanka dhowr nooceeda u kala hayeen. marka aan dalbay ilmahan weydiiyey waxaa ku dhahay dhadhanka bastiiliga noocee rabtiin? tufaaxay dhaheen. marka saa u jeedinba tufaaxa ani aan u dalbay. intana waxaa kusoo diyaarsada 2 bac, magacyadoodana waa ku qoray. bacahan waxyaalaha maaragtay filinjeerka hoose khudaarta cuntooyinka waxaa gashanaysid aad ku ridanaysa waaye. marka ani waxaan ugu talagalay maadaama maalmaha kale 5 maalin guriga subaxdii ay ka baxaan galabtii 4 ay imaadaan. iskoolka waxay ku leeyihiin 2 cunto. iskoolka waxay ku leeyihiin qado. meel kale oo waxaa jirto ilmaha lagu caawiyo oo iskoolka markay ka tagaan kadib aan lacag ka bixino ilta garho la dhaho.
homeworkada looga shaqeeyaa waa lagu iska ciyaaraan iyadana waxaa laga siiyaa waxyaalo yaroo casariye. marka waxaan ku talagalay 5 maalin inta waxaa ku shubayaa 10 xabo, intana waxaan ku ridaa 10 xabo maalintiiba 2 xabo, si qadada markay iskoolka ay cunaan xabada ay ka daba cunaan, casariyaha markay cunaan meesha lagu caawiyo homeworkada waxaas laga caawiyo, markay cunaan casariyaha ka cunaan hal xabo inay ka cunaan. marka baxdan ayaan saan u buuxinayaa week walba ku shubi doona hadii Ilaahay raad ka noqdo, intana 10 xabo ku shuba, intana 10 xabo inta kalena saani u jirayaan. qaandadan jartaana waa u dhexgeliyay si aysan maaragta farahiyo maaragta waa iska ilmi bacteria la aysan ku qaadanin, aniga xitaa ma ii fiicno. marka kadibna saas ay fiicanta. waxaa ku jiro 500 gram waaye, adoo nus kiilo hal xabo hadii loo xisaabiyana waa 877 xabo. marka halkeen ka dalbaday qiimahana meeqa waaye, meeqa cisho ayaa liigu keeni karaa? 3 su'aal ayaa muhiim noo ah intaan markaan dib ugu gudmo. aniga waxaan dalbaday jimcihii, waxaana lii keenay maanta oo Isniina, Sabti Axad. marka waa gobol Finland kamid ah ayaa lagu sameeyay bahashan. marka website-ka aan ka dalbaday waa kaas website-kaas ayaad ka dalbanaysaa. verka google-haad waxaa ku qoraysaa Hamas kayo aa ku qoraysaa halkaas. kadib dhadhanka aad rabtid ayaad maaragtay dhadhanka aad rabtid ka dooranaysaa. halkaas waana qudaar waxyaalaha maaragtay cuntooyinka iyo lagu darana way ku yar tahay bahashan, ama loogu talagalay waxyaalaha yacni waxa markii la dhigayo lagu xanaaneeyo daawooyinka Soomaali ahaan hada asaas u sharaxo, daawooyinka oo loogaga ilaaliyo bakteeriyada iyo waxaas iyo way ku yar yihiin. marka qiimahana waa kaas intaas ku dalbaday. macala boostada waxaa waaye 24 euro. marka gabdho balanteen waxaa waaye ilmaha in loo dalbo Hamas kayo ayaa laga dalbanayaa. bista v aad dhehaysaa Finland aad joogto, wadamada kaleetana ma ogi in ay dalb laga helayo iyo in kale. haddaad google karaysidna laga yaabaa wadanka aad joogtid in aad ka heshid, ama kuwaan ay ku keeni karaan, taas ma sheegi kari. laakiin reer Finland meel walba aad Finland ka joogtid balanteenu waxaa waaye inaad ilmahaaga u dalabtid haddii Ilaahay raali ka noqdo. balanteenu waa inaadan iga hilmaamin subscribe, share, like, comment qurux badan. waa mana macaane oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh. videogan ku xigo haddii Ilaahay raali ka noqdo